qofka kuu muuqda ma aha cunug yar oo derbi isaga ciyaari hayo, waase artiste weyn oo Amiin Caamir iyo filkiisa bedeli doono, waa haddii uu helo hiil bilaa hagrasho ah. Tani waa qisada Cabdiraxmaan. Inta ayna hore u sii galinse, fadlan la wadaag asxaabtaada ama ugu wac qof aad hubtid inuu garab istaagi karo sida Amiin Caamir iyo qof walba oo dhaqaale ahaan u taageeri karo. Aynu u gadagalno barnaamijkeena. Kani waa Cabdiraxmaan oo si kadis ah kula kulmay isagoo derbiga madaxtooyo wax ku sawirayo. Waxaa soo jiitay hankiisa iyo dhiiranaantiisa, bal suurayso cunug yar oo rinji soo qaatay kadibna wixii niyadiisa ku soo dhaca ku sawiraya derbiga dambe ee madaxtooyada, gaar ahaan qaybta taalada sayidka. Kolkan ku dhawaaday buu Cabdiraxmaan isxirxiray, joojiyeyna hooshii, wuxuuna u soo dhaqaaqay inuu ku fariisto haraadigii baar bulsho ama beerta darwiishta. Waxaan isku dayay in aan la sheekaysto kana soo bixiyo difaaca. Malahayga dhar cad daalac u raacan rabuu imooday. Waxay ahaataba dhoola caddaynteeda dejisay laabtiisa. Waxaan weydiiyey in waxani maanta u soo dhaqaaqay. Wuxuuse ii sheegay in uu rinji waayo maahine in maalmaha kale dhan uu imaado, sidaasna wixii ku soo dhaco uu ugu sawiro. Hadalkiisa wuxuu u muuqday mid been ka hufan, waana wax lagu farxo. Waxaan weydiiyey waxyaabaha uu sawiri karo, wuxuuna ii sheegay waxyaabo badan in uu maskaxdiisa ka sawiri karo, qaarna haddii la tuso uu sawiri karo. Hase yeeshee uusan weligiis isku dayeynin iskuna dayi doonin in uu dad sawiro. Markaan sababta weydiiyena wuxuu igu sheegay in dembi tahay, sidaasna oo uga haray. Miyuusan mudneen dhallaanka alla ka cabsiga badan in maskaxiyan loo garab istaago, maalna wixii uu u baahan yahay lagu garab siiyo? Asa waa danyar ku nool isku raranka baar bulsho, wallee wuu mudan yahay. Ogow daawade, riyooyinkiisa quruxda badan way dhiman doonaan haddaan loo kicin oo la garab istaagin. Haddaad rabtid in aad garab siiso, ila soo xiriir ama u sheergaree qof aad og tahay in uu garab istaagi karo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.